lafta gareen wuxuu aaminsan yahay haddii hooyada daaro tahay inaan laandheero tahay wuu aaminsan yahay hadda hadduu cararana waxaa khatar inuu gobolka gedo u cararo baa khatara ama Ethiopia uu cararo adigu farmaajo iyo saacid waa laba nin reexana waa laba nin sada ah wiilkaas abtiba u yihiin hadday fuustaan u shaqayso xildhibaanada inay iyagu helayaan bay og yihiin yeesa baashu ka khaldamay xildhibaanada inay iyagu helayaan bay og yihiin saa darteed ugu hambalyeynayaan lafta gareen ninka la dhaho marka taasaa waxay keenaysaa inay hambaliyada subaxii saaka aroortiba inay hambaliyo lafta gareenow se waxay soo ogeen sharci darrada hadda ay ka hambaliyeen inay iyaga hadhow caqabad ay ku noqonayso waxay soo ogeen sharciga markuu dastuurka Soomaaliya la dhameystiro al-shabaab wadanka laga saaro waxyaabaha soo dhan oo maanta la sameeyo nimanka mareexan hadday kursiga ku guuleystaan inay iyaga anfaci doonto niman ay u diyaarsan tahay oo u qoran tahay ma waa niman bas waxa lagu soo boobo waxa lagu soo dhaco ajanda kale ma jiro laakiin lafta garan abtiba u yihiin waxa uu soo xulana inay iyagu qaadanayaan waa niman og weyn nimanka mareexan 24 saacadood kadib ba adiga ay kuwa ku taageeraya oo beenta ku sheegaya baan iswareysan doonaa sabti kuma oo ku ooyahay kuma aaro anu abtiga baa ina ku ooyo maahay ku aari maayo runtan ku sheegay